xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay inay dalka soo gaadheen qalab ay soo iibsatay ee lagu ogaanayo xanuunka COVID-19 agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa sheegay in qalabkan ay dawladda Imaaraadka Carabta ugu deeqday Somaliland isla markaana uu dalka soo gaadhay shalay waxa kale oo agaasimuhu cadeeyay in baaritaan lagu sameeyay 1265 qof oo dalka soo galay tii joogtada ahayd ee maalinlaha ahayd ee ay bixin jirtay wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo ay la socoto wixii update ah ama wixii kolba soo kordhay inaan la wadaagno bulshooyinka Somaliland iyo bulshooyinka caalamkaba waxa aan idin cadeynayaa mar kale in wali caseska confirmed ka ah ama xaaladaha confirmed ka hadda aynu haynaa ay yihiin laba xaaladood oo kaliya labadii xaaladoodna ay caafimaad qabaan alxamdulillah waxaan idin la wadaagayaa in wixii cusbitaal ahaa ee loo baahnaa hadiiba ay timaado inuu qof cusbitaal u baahdo ay diyaar ka yihiin caasimadda iyo gobolada dalka oo dhan oo hadii cases la arko u baahan confirm oo u baahan xaalad caafimaad oo cusbitaal lagu dhigo inay cusbitaaladii diyaar inoo yihiin shaqaalihiina diyaar ay ku yihiin tababaran yihiinna waxa kale oo idin sheegayaa in dadka ka soo gudbay 1265 ka laguma arag wax case ah oo u leh calaamadihii ama xumadii loo baahnaa dadka karantiinka inoogu jira waxa weeyaan dhowr iyo 60 qof waa ilaa 64 qof waayo shalay ayaanu sii deynay 42 qof ee ugu horeeyay oo nu ka sii deynay hotelka Royal iyadoo dhamaantood ay ahaayeen dad caafimaad qaba oo taskii laga qaadayna uu wada negative ahaa dhammaan tasaska aan qaadnay muddadii labada qof ka dambeysay waa wada negative haddii ay wax soo baxaan waan la wadaagi doonaa bulshada oo aan wax kala aragnana waan la wadaagi doonaa bulshada reer Somaliland waxa aan jecelahay inaan dadka u cadeeyo inay maanta bilaabmayso wacyigelin ballaaran oo wadanka oo dhan ah iyadoo baabuurtii la saarayo mikrofoonno oo gudida qaran ay hadda diyaar ku tahay halkii wasaaradda hawlaha guud oo la sii deynayo wacyigelin ballaaran oo wadanka oo dhan ah oo la geynayo degmooyinka oo dhan baabuur wareegta dhinaca barigana 7 cisho dhinaca galbeedkana 5 cisho wacyigelintaas oo dadka loo sheegayo qodobadii wacyigelinta ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay horeba ula wadaagi jirtay bulshooyinka waxaan doonayaa inaan ku soo khatimo kelmadihii wacyigelinta ahaa ee aynu horeba u oran jirnay waxa aan dadweynaha la wadaagayaa in ay joogteeyaan oo ay adeegsadaan nadaafadda guud iyo nadaafadda gaarba inay isticmaalaan inay dhaqaan gacmahooga mar walba inay iska ilaaliyaan inay gacmahooga ku taabtaan afka iyo sanka waxa kale oo bulshada kula dardaarmayaa inay ka fogaadaan meelaha ururka inay bulshadu kala fogaato oo labada qof ee wada hadlaya ay isku jiraan ugu yaraan ilaa 2 mitir oo dadku ay kala fogaanta ama social distance ka waxa la yiraahdo la isticmaalo oo meelaha ururka laga fogaado waxaan dadweynaha u sheegaynaa in marka ay qufacayaan ama ay hindhisayaan ay saaraan soft tissue amba masar ay kofargareeyaan afkooda iyo sankooda oo aanay dadka aanay ku qufcin si toos ah ama aanay ugu hindhisin waxa kale oo aanu doonaynaa dadweynuhu inay qaataan oo ay mar walba raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda horumarinta caafimaadku inay la socdaan wararka ka soo baxaya wasaaradda horumarinta caafimaadka warkaas ayuunbaa rasmi ah waxa kale oo jecelahay inaan halkan uga gudbiyo bahweynta caafimaadka ee wacyigelinta dhinacyada duwan ka kala wada in ay mideeyaan wacyigelintooda waxaan kula dardaarmayaa bahweynta caafimaadka inaan dadka loo sheegin waxyaalo kala duwan ama wacyigelin iska hor imanaysa wacyigelinta inta adduunka wacyigelin ka socota way midaysan tahay ugu bishaareynaya dadweynaha Somaliland inuu u yimid BSR kii amba mishiinkii lagu baari jiray shaybaadhkii ugu horeeyay oo aynu ka helay maanta dawladda Imaaraadka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dawladda Imaaraadka Carabta taageerada ay siisay Somaliland ee ah inuu BCR ka yimid waxa kale oo inoo imanaya qalab caafimaad oo iyadana aynu ka sugaynaa hay'adda WHO galabta oo isaguna BCR iyagana hay'adda WHO na waxaan uga mahadcelinaynaa taageerada ay u fidiso shacabka Somaliland iyo dawladda Somaliland labada